السلام عليكم. magacayga waa Maxamed Mawlid. Muuqaalkan maanta waxaan kaga hadlaynaa dagaalkii Cusmaaniyiintu ku jabinayeen dawladda Hungary 2 saacadood kaliya. Fadlan saad noola socoto muuqaalada dambe. Subscribe saar, asxaabtaana la wadaag. Daawasho wacan. kadib markuu boqorkii Suleymaan qaanuuni xilka la wareegay 1520 sin hore u soo sheegnay muuqaalkeena horeba qaar badan ayaa yareystay boqorkan 15 jirka inaan waxba qaban karin kuwa waxa kamid ah boqorkii Charles shanaad loo oran jiray dawladda Hungary ka tirsan jiray dawladda Hungary waqtigaas Yurub dawladda ugu awoodda badan bay kamid ahayd Charles shanaad markuu maqleen ilmo 25 jir la wareegay dawladda Cusmaaniyiinta wuxuu bilaabay inuu heshiisyadii oo dhan ka baxo jizyadii uu bixin jiray dawladda Cusmaaniyiinta siin jiray uu diido safiiru Suleymaan qaanuun u diray xagaas iyo Hungary uu kurka ka jaray Suleymaan markuu maqlay arintaas wuxuu bilaabay inuu dhaho sidee baa loo dilaa safiirkayga nool bari bay garan doonaan Yurub ciqaabta ka raacda marka wuxuu bilaabay Suleymaan inuu ururiyo ciidan fara badan 100,000 ciidan lagu qiyaaso Istanbul bay ka baxeen dhankaasi Yurub wajahan isla markii ciidankii Cusmaaniyiintu ka soo baxeen Istanbul waxay bilaabeen isla markii inay go'doomiyaan Belgrade caasimadii Serbia waqtigaas go'doon badan kadib waxay ku guuleysteen inay furtaan kadib furashadii Belgrade Suleymaan wuxuu hoos keenay dawladdii Serbia Cusmaaniyiinta wuxuuna sii watay safarkiisa dhankaasi uu Hungary ugu sii socday ilaa 1,000 kiiloomitir dhul ugu qiyaasan oo jiray si uu gaaro goobta dagaalka ee Mohacs loo magacaabo xaggu dagaalku ka dhici doono intuu wadada ku sii jiray Suleymaan wuxuu furtay dhowr qalcadood oo Kristaanku lahaayeen inta ciidanka muslimiintu ku soo jireen jidka baabihi ama ninka kaniisadda ugu weyn Kristaanka wuxuu bilaabay inuu Yurub oo dhan iskugu yeedho kaalin muslimiinta iska celiya Yurubna way aqbaleen dhamaantood wayna soo ururiyeen qaaradda Yurub oo dhan ka soo qayb gashay dagaalkan marka laga reebo dawladda Ingiriiska iyo Faransiiska marka xulafo la ahaa dawladda Cusmaaniyiinta iyo Boortaqiiska isagu meel kale ku mashquulsana inta marka laga reebo wixii kale oo dhan way ka soo qayb galeen dagaalka ciidan ah waxay diyaarsan 200,000 oo askari ciidan lagu magacaabo hatta odayaashii kaniisadda ama si baabo si iraadaanba way ka soo qayb galeen dagaalkan iyagoo wata seefoodiyo dharkii iskaga difaaceen seefa boqorro aad fara badan oo reer Yurubna ka soo qayb galeen Hungary markan waxay heshay taakulaad badan Yurub oo dhan soo taageereen labada ciidan marka wax ku kulmeen goobta lagu magacaabo Mohacs ciidanka muslimiinta si soo sheegnay waxay gaadheen 100,000 xagga Yurub tan soo urursatay gaadhis 200,000 dagaalkan wuxuu dhacay 932 hijriyada oo ku beegneed 1526 miilaadiga Suleymaan habeenkii dagaalka dhan uu taagnaa Ilaahay uu bariyay Muuse xanin subaxnimadkii markay gaadheen ciidanka salaadii fajrka ayuu tujiyay kadib intuu istaagu dhankooda soo eegay ayuu ku yiri ka soo qaaday sunnah Maxamed goobta taagan oo kale marka ciidamada ereyga maqleen dhamaantood wada ilmeeyeen habna uu sii wada siinaygu isku ballan qaadaya inay jannada ku kulmi doonaan haddii Ilaahay ka dhigo goobtii dagaalka markii la yimid labada ciidan soo istaagan Suleymaan tactical dejiyay ayaa tactical cajiib ah Suleymaan ciidankiisu wuxuu u qaybiyay 3 qaybood qaybta hore wuxuu ka dhigay ciidankiisa inkishaariinta lagu magacaabay qaybta labaadna fardooladii fududeed qaybta saddexaadna wuxuu ka dhigay kuwii madaafiicda waxaana amray qaybta inkishaariinta u horeysay kaliya in dagaalka galaan muddo 1 saac ay sabraan kadib markii halkaas saac dhamaato ay u baqdeen carraan iska dhigeen sidii qaar jabo kale dhinacyada u kala baxaan inkishaariinta dagaalkii bay galeen isla sidoo kale sameeyeen 1 saac muddahan u taagnaadeen oo sabreen kadib markii 1 saac dhamaado waxay bilaabeen inay iska dhigaan sidii qaar jabo kala yaacaan labada dhinac u kala carraan Yurubiyaanku waxay moodeen inay ciidankii Cusmaaniyiinta durba jabiyeen muddo 1 saac gudaheeda way soo daba yaaceen waxay soo ordaanba waxay ciidamadii inkishaariintu u kala beedhaan waxayna ku soo aadeen madaafiic goob madaafiic taal marka ciidamadii Yurubiyaanku goobtii madaafiicda soo dhex galeen Suleymaan wuxuu amray in madaafiicda lagu furo خسارة آدي آدو فربضن بسوا قاري عيدا مدي يورب قار بدنو بايسيري يونا بحسوا بقرد يورب كمي دهاين يو وضياشي كنيسة دمامولي كوينا بدن كويدي بدا أيا لخذي قيبتي سؤال نوحي اسكو ديني ستيبا لكن سليمان حوجو مرة بمحا دقالام وسيفتو دينتال دون ودي بالورني دقالام وحسك علي نن عيدا كيسي جوانا وحبس كمعينيو كوركم بلغا جارين دقال كان مدد السعودية واحد لبا ساعة كليا ciidamadii Yurub 200,000 ahayd lagu jabiyay taariikhyaankii lagu magacaabi jiray Ranset Levis references wuxuu ku tilmaamay
dagaal Mohawks la mid ah taariikhda binaadamka Mubaarak sidee 2 saac kaliya ta lagu jibnay ciidan 200,000 oo askari ah saameyntii dagaalkan ilaa haatan bay dawladda Hungary haysata oo markay rabaan inay ku tilmaamaan shaygan aad buu xun yahay waxa ku tilmaamaan ka xun jabkii Mohawks dagaalkan kadib Suleymaan wuxuu qabsaday dawladda Hungary waxaana hoos keenay dawladda Cusmaaniyiinta saasaanay maamulkii Hungary ku soo hoos galay Cusmaaniyiinta muuqaalkan maanta intaas ku eegi fadlan hadduu ku cajabay subscribe saar lana wadaaga asxaabtaada. Assalaamu calaykum.